بسم الله الرحمن الرحيم شغل maalmeedkan maanta aan wadnay oo ku saabsan wacyigelinta iyo qorgalida xaaladda caafimaadka ku saabsan waxaan rabnaa halkan horta marka ugu horeysa inaan u mahadnaqno geesiyaashii front line-ka ku jiray oo dhaqaatiirta doctorada iyo kalkaaliyayaasha iyo dhammaan bahda caafimaadka oo naftooda u huray inay ka hortagaan xanuunkan caabuqan halakay adduunka dhan oo la iska kaashanayo waxaan rabnaa inaan maanta aan ugu hambalyeeyno dadaalkii ay soo galeen inaan macnaha aan ugu mahadnaqnaan rabnaa midda kale waxaan rabnaa inaan ku xoojino shaqadeennii COVID-19-ka inaan ku sii soconno oo maalmihii ciidda wixii xoogaa naga galay fasaxa inaan halkiisii inaan ka sii wadnaan rabnaa waxaan kaloo rabnaa inaan ku baraarujino oon ugu yeernay duqa magaalada iyo gudoomiyaha degmada tan inay macnaha nagala qayb galaan kuna daydaan sida gobolka Banaadir hawsha ay wadaan inay inta ka qabtaan hadii aan la idmano inay inta ka qabtaan oo ugu horeyso masaajidada oo ugu horeyso wacyigelinta nadaafadda oo ugu horeyso statistikada ama ka warqabka dadka ku dhimanaya oo aan soo marin isbitaalada aad bay u tiro badan yihiin marka waxaan rabnaa sida gobolka Banaadir inaan xisaabtano meeqa naga dhimatay imisay kor u kacday garaafka dhimashada ay kor u kacday inaan macnaha ay la socdaan qof kasta oo dhinta oo hadda ka dambeeyo in la diiwaan gasho oo ay degmada ay u diiwaan gashan taan rabnaa in la diiwaan gasho ama cudurkan ha u dhinto ama cudur kale ha u dhinto sida wadankaba uu doortay oo nationalka ama qarankuba sida uu doortay arinta tan waxa suurta gashay wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda warfaafinta oo iskaashanaya iyo awqaaftan waa dadaalkii ay macnaha ay lagu bilaabay ilaa hadda lagu socdaan waxaan rabnaa anagoo ka faa'iideysanayna munaasabadatan dhammaanba dadka reer Hirshabeelle inay taxadiraan arintaana ay u qaataan mid sax ah oo run ah in la dhimanayo awal waa la dhimanayo laakiin arintan inay tahay caabuq saf mar ah inuu yahay oo diintuna ay sheegayso wacyigelinta dhaqaatiirta ay jeedinayaan iyo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda warfaafinta waxaan rabnaa iyo dawladaha hoose iyo degmada iyo culimada warbaahinta iyo wacyigelinta waxaan ka codsanaynaa dadweynaha reer Hirshabeelle inay si fiican ay u qaataan taas waxa weeye waxa looga baaqsanayaa qatar badan oo dhici lahayd baa looga baaqsanayaa sidaas daraadeed madaxdu umayna kala harin wasaaradaha madaxweyne ku-xigeenka wasiirada waxaas oo dhan baarlamaanka xubnaha baarlamaanka ururada bulshada sida ururka haweenka oo halkaan aan ammaan aan uga dirayno iyo dhammaan culimada looma kala harin wacyigelinta halkeedii aan ka sii wadno arintu halkii bay ka socotaa ma dhammaan sanad bay qaadan kartaa laba sano qaadan kartaa naftooda hurayaasha front line-ka oo Hirshabeellana inay halkoodii ka sii wadaan oo ay naftooda sida ay ugu horeen inay ayaguna isbadbaadiyaan ayna badbaadiyaan dadkoodana inay badbaadiyaan ayagana waa halkii inay ka sii wadaan baan macnaha aan ku boorinaynaa waana garab istaagayna haddaan state-nahay iyo haddaan federal-nahay waa la iska kaashaday waad arkaysaan isbitaalka sida yani halka kan loogu diyaar garoobay waad arkaysaan sariirihii federaalka nooga imaaday iyo qalabkii kale oo mashiinada waad u jeedaan arintu way sii soconaysaa marka waxaan rabnaa in aanan isdhigan oo halkeenni inaan ka sii wadnaan rabnaa dadka kale oo masaakiinta oo isbitaalada aan ku booqannay ayagana yani waa soo booqannay waan aragnay xaaladooda inay aad u liidato waan aragnay hadday ahaan lahayd meesha bukaanjiifka iyo maternity-ga hadday ahaan lahayd waxaan rabnaa marka habkii caafimaadka guud ama premier care-kii noo socday inaanan ku iloobin caabuqan shaqana ku iloobi mayno washkii nutritionkii daaweyntii healthigii yani waa inaanan ku iloobin oo ayadana aan gacanta bidaxa ku wadno
caabuqan la dagaalankiisana inaan ku wadno gacanta midig inaan ku wadno waa saas ujeedada maanta aan u soo kormeernay waa sidaas marka waad mahadsantihiin insha Allah wixii su'aalaad qabtaana waa idinkaga jawaabaynaa hortu cudurka kana dawo ma leh ka hortag buu leeyahay wixii noo imaaday oo ama hay'ad ka imaaday iyo wixii federal nooga imaadayna si siman ba isteediyaduna ay u qaybsadeen state-keenana si siman baa loo geenayaa laakiin dhibka jira wuxuu yahay qalabku intuu ku soo hormaraa sababtoo ah hal meel baa lagu ogol yahay in lagu geeyo sidaad arkaysaan maalin dhaweyd qalabkii aruuray oo dhan waxaa qaaday diyaaradii madaxweynaha iyo wafdigu ay ku socdeen ayaa waxay geeyeen Beledweyne laakiin dhibka Beledweyne ka jira waa fatahaada waa qalabkii waa diyaarsan yahay daawo kale toos baa loo geyn lahaa garoonkii baa macnaha qoy oo 21dii meeshii halka kan 20ka laga keenay waxay ahayd xaggana inay diyaaraddu ka tagto 21dii daawadaas oo ka timid bixiyaasha marka 28 ayaa lagu balansayaa in la geeyo qalabkii kalena waa la geeyay midaas faahfaahin naga sii waa runta dadka horta dhintay oo soo maray macnaha si official u dhintay waa 3 mas'uul oo labana ay halka kan ay ka tirsan yihiin oo mas'uuliyiin mas'uulna uu ka mid ah hay'adaha caalamiga oo matalaan laga soo qaaday dadka positive ka noqday maadaama xaaladooda ay tahay ay wanaagsan tahay waxay ku karantiilan yihiin guryahooda mar kale ayaa waxa laga qaadayaa test laga qaadayaa laakiin taqaatiirtu waxay kula tasheen inay joogaan guryahooda inay joogaan wixii xaalad degdeg ah ay ku imaatana oo naqasku uu qabtana halka kan ayaa macnaha la keenaya hadii alla idmo safar loo sakay saacad sadaf afar iyo 20 saac oo la soo dhaaftay ama 48 saac oo la soo dhaaftay hoogaa ciid baa la galay kiisaskii aan qaadnay inta badan waxay noqdeen negative ay noqdeen waa alxamdulillah inuu hoos u dhaco waa waxa aan macnaha aan rajaynayno waa insha Allah intii kalena hadday noo diyaarsantahay waan qaadaynaa waan ku soconaynaa kuwii hore positive ka u noqdayna mar kale waa in retest lagu sameeyo waa hadii alla idmo